بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكودي لوليو أما كودي جولاي لبدي كوني تضبيط طبانكي مركوغو رساسي أنا فرصدو يساقين وحن هالكن همبليو تهنيد بوغادين بوغاد ريا شعبي الصومالية دولن ما هي شعبي الرئيس صوماليا وهي مالنتو إيه قارو تهي ee u dabaaldegaya 7 guuradii ka soo wareegtay maalintii ay xornimada ka qaateen gumaysigii Talyaaniga oo isla markaana ku beegan maalintii ay Israaceen ama ay isku darsadeen labadii gobol ee Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala gumaysan jireen anigoo munaasabada ku tahniyadeynaya ayaa waxaan aad uga xumahay khudbadii marnayd ee weyda ahayd ee uu madaxweynuhu u jeediyay shacbiga tabaalaysan ee aanu kaga hadal mudnaantooda iyo baahidooda waxay tahay balse ku taxay magacyo dad dhintay naxariistii janna Allah ka waraabiye oo badnaa oo siyaasiyiin lahaa oo hal abuuro lahaa oo uu ku sheegay inay gobonnimada u soo halgameen isagoo in badan oo ka midana taseeyay tusaale ahaan markuu soo qaadanaya Sheekh Mukhtaar Xuseen oo gudoomiyihii baarlamaanka uu ku sheegay 769 waxaanu wada ognahay in dalku xoroobay 1960 israacuna dhacay dee 7 sanadood bacid baa gudoomiye oo ahayd baarlamaanka jaamac Abdullaahi Qaalib ina diir qaraar Axmed Sheekh ayaa soo maray marka isweydiintu waxay noqonaysaa farmaajo kuwa malooma ooyaan buu yaqaanaa wuxuu soo qaaday maxamed xaaji ibraahim cigaal oo uu ka soo qaatay halkudheg uu yiri isaga lahaa markii uu halkudhega sheegayna wuxuu waxaan ka soo xigtay BBC-da reer Soomaaliya iyo reer Somalilandna hadday maqlaan waxa BBC-da laga soo xigtay waxay u qaataan hadalkii mafrishka iyo makhaayadaha oo xigasho maaha taasi maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu dhintay isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagoo aaminsan buu dhintay fagaarayaasha caalamiga ahaa ee ugu mudnaa ee uu ka sheegay mowqifkiisa waxa ka mid ahaa bishii 3aad 1993 anagoo joognay magaaladaas sababa hoolka ECA-da shirarkii lagu magacaabi jiray dib u heshiisiinta Soomaaliyeed goobjoog aanu ka ahayn anagoo shirkii Boorama ka tagnay maxamed xaaji ibraahim cigaal ka hadlayay 18 urur oo Soomaaliya ka yimid ayaa fadhiyay 14 isbahaysiga cali mahdi bay ahaayeen 4 isbahaysiga SNA-da aydiid bay ahaayeen khudbadiisii isagoo ku jira ayuunbu cigaal wuxuu ku dhawaaqoon hadaad xilo dooni xamaraag joog hadaad xoolo dooni xamaraag joog hadaad xaraga dooni xamaraag joog dabeedna hoolkii baa isla oogsaday dabeedna waa kuwa qaaday Soomaaliya toosoo isku tiirsado hadba kiina taag daran taageero waligiin cigaal maalinta wuxuu yiri hadalkaasi halkii uu nadamqi jiray way bogsootay maxamed xaaji ibraahim cigaal naxariistii janna Ilaahay ka waraabiye waa kaas waxaanu ku dhintay isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aadna waxaanu uga xunahay inuu farmaajo ka been sheego khudbadihii iyo tusaalooyinkii iyo tilmaamihii maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaanu aad uga xunahay inuu mar kale qaldo magacyadii hal abuurka Soomaalida xalayna wuxuu yiri Cabdillaahi Qorshe waa Cabdillaahi Qarshe muu garan waayin saddexdiisa magac iyo tilmaantiisa iyo taariikhdiisa waa Cabdillaahi maxamed maxamuud xirsi oo ay dhashay dahabo xirsi oo ku dhashay 1924 magaalada Moshi ee dalka Tanzania 97 baan Google-ka iyo meel walba YouTube-ka gelin taariikh nololeedkiisa laakiin tii tahli maayo inuu baadho oo la soo baxo kaasa doonaya inuu luuqyada xamar amaan darrada taala baabiyo waxaan dadweynaha daawanaya xasuusinaya tudcii ahaa hasalaax naas gulay ninkii gaagaxshaatay waxa lahaa Ibraahim Galle maasadu waa garnaqsi waa 1998 waxaanu xasuusinaynaa farmaajo 1960 wixii dhacay wuxuu ahaa israac iyo isku dar
maadaama aan soo qaaday ibraahim sheekh saleebaan ibraahim gadhle xaqudirirkii aan xuduudda lahayn maruu arrintaa ka hadlayey wuxuu yidhi lixdankii dadkay u markaa dowladnimadii diiqada u bixiseen degdegsiiye mooye doqonnimo ma ahayn shanta kale dab raacdaa dermo qura u gowasheen sidaan damacsanaa iyo siduu doodiyeelaa kala durugsanaadee dar alle abaalkaa waxa dumay ku suure annaga halkaasi horta naga taagan tahayoo qoomamayn mayno waxaanu islahayn soomaali wanaaggeeda ka taliyo sidaasaanu calanka idinku keennay maanta wax midnimo la yidhaa oo lixdankii dhacay ma jiro isku dar iyo israac baa dhacay midnimada cidda ay ka dhaxaysay calankaa ka markhaati ah waa xidigta shangeeska ah ee cad ee ku taalla calanka annagu saddexdii soomaaliyeed ee kale haddii ay door bideen inay iskood u taagnaadaan oo ay u noolaadaan raalli baanu ka nahay waanu ku hambalyaynaynaa iyagana waxaanu ka sugaynaa oonu uga fadhinaa inay nagu hambalyeeyaan oo ay raalli ka noqdaan waxa ay doorteen inaannu annaguna dooranno oo sidaa isku raalli ku kala ahaanno walaale isjecel oo wada jiro ku ahaanno reer soomaaliyana waxaannu leenahay midnimo madhan oo aan jirin cid u fadhiisanaysa oo aannu kala hadlaynaa ma jirto soomaaliya waxaana dhex maray israac iyo iskudar diyaar baanu nahay israaca iyo iskudarkaa inaannu kala hadalno midnimada ka hadalkeeduna wuxuu u yaallaa shantii soomaaliyeed ay ka dhexaysay waa haddii ay dan ka leeyihiin haddii kale annaguna dan iyo muraad kama lihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadday maqlaan waxaa b b c da laga soo xigtay waxay u qaataan hadalkii mafrishka iyo makhaayadaha oo xigasho maaha taasi maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu dhintay isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isagoo aaminsan buu dhintay fagaarayaashii caalamiga ahaa ee ugu mudnaa ee uu ka sheegay mowqifkiisa waxaa ka mid ahaa bishii 3aad 1993 annagoo joognay magaaladaasi sababa hoolka e c eda shirarkii lagu magacaabi jiray dib u heshiisiinta soomaaliyeed goobjoog aanu ka ahayn annagoo shirkii boorame ka tagnay maxamed xaaji ibraahim cigaal ka hadlayey 18 urur oo soomaaliya ka yimid ayaa fadhiyey 14 isbahaysigii cali mahdi bay ahaayeen 4 isbahaysigii sneda caydiid bay ahaayeen khudbaddiisii isagoo ku jira ayuunbuu cigaal wuxuu ku dhawaaquun haddaad xilo dooni xamaraag joog haddaad xoolo dooni xamaraag joog haddaad xarrago dooni xamaraag joog dabeedna hoolkii baa isla oogsaday dabeedna waa kuwa qaaday soomaaliyay toosoo isku tiirsadoo hadba kiina taag daran taageera weligiin cigaal maalintaa wuxuu yidhi hadalkaasi halkii uu na damqi jiray way bogsootay maxamed xaaji ibraahim cigaal naxariistii janno ilaahay ka waraabiye waa kaas waxaanu ku dhintay isagoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan aadna waxaanu uga xunnahay inuu farmaajo ka been sheego khudbadihii iyo tusaalooyinkii iyo tilmaamihii maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaanu aad uga xunnahay inuu mar kale qaldo magacyadii hal abuurka soomaalida xalayna wuxuu yidhi cabdilaahi qorshe waa cabdilaahi qarshe muu garan waayin saddexdiisa magac iyo tilmaantiisa iyo taariikhdiisa waa cabdilaahi maxamed maxamuud xirsi oo ay dhashay dahabo xirsi oo ku dhashay 1924 magaalada mooshi ee dalka tanzania 97 baanu google-ka iyo meel walba youtube-ka gelinay taariikh nololeedkiisa laakiin tii tahli maayo inuu baadho oo la soo baxo kaasaa doonaya inuu luuqyada xamar ammaandarrada taalla baabi'iyo waxaan dadweynaha daawanaya xasuusinayaa tudicii ahaa hasalaax naas guna ninkii gaagaxshaatay waxa lahaa ibraahim galle maansadu waa garnaqsi waa 1998 waxaanu xasuusinaynaa farmaajo 1960 wixii dhacay wuxuu ahaa israac iyo isku dar maadaama aan soo qaaday ibraahim sheekh saleebaan ibraahim gadhle xaqudirirkii aan xuduudda lahayn maruu arrintaa ka hadlayey wuxuu yidhi lixdankii dadkay u markaa dowladnimadii diiqada u bixiseen degdegsiiye mooye doqonnimo ma ahayn shanta kale dab raacdaa dermo qura u gowasheen sidaan damacsanaa iyo siduu doodiyeelaa kala durugsanaadee dar alle abaalkaa waxa dumay ku suure annaga halkaasi horta naga taagan tahayoo qoomamayn mayno waxaanu islahayn soomaali wanaaggeeda ka taliyo sidaasaanu calanka idinku keennay maanta wax midnimo la yidhaa oo lixdankii dhacay ma jiro
isku dar iyo israac baa dhacay midnimada cidda ay ka dhaxaysay calankaa ka markhaatiya waa xidigta shangeeska ah ee cad ee ku taalla calanka annagu saddexdii soomaaliyeed ee kale haddii ay door bideen inay iskood u taagnaadaan oo ay u noolaadaan raalli baanu ka nahay waanu ku hambaliyaynaynaa iyagana waxaanu ka sugaynaa oonu uga fadhinaa inay nagu hambaliyeeyaan oo ay raalli ka noqdaan waxa ay doorteen inaannu annaguna dooranno oo sidaa isku raalli ku kala ahaanno walaale isjecel oo wada jiro ku ahaanno reer soomaaliyana waxaanu leenahay midnimo madhan oo aan jirin cid u fadhiisanaysa oo aanu kala hadlaynaa ma jirto soomaaliya waxaana dhex maray israac iyo isku dar diyaar baanu nahay israaca iyo isku darkaa inaannu kala hadalno midnimada ka hadalkeeduna wuxuu u yaallaa shantii soomaaliyeed ay ka dhaxaysay waa haddii ay dan ka leeyihiin haddii kale annaguna dan iyo muraad kama lihin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu